qodobada wararka raadraaca aad ku daawan doontaan hadduu eebidmo waxaa ka mid noqonaya maamulka Jubbaland ayaa si kulul uga jawaabay war dowladda Soomaaliya ee ka soo saartay doorashada maamulka Jubbaland xilliga ay dhacayso maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Koonfur Galbeed oo dil ku fulisay 3 rag oo ka tirsan al-shabaab dowladda Nigeria oo Soomaaliya uga digtay go'aankii xiriirka ay ugu jartay dalka Gani dowladda Soomaaliya oo hay'adaha degan xalane ka dalbatay in si degdeg ah u bedelaan magac ay u adeegsadaan garoonka diyaaradaha aadan cadde oo diyaar garooba qodobada warka ah oo faahfaahsan daawadayaal maamul goboleedka Jubbaland ayaa si kulul uga jawaabay war dowladda Soomaaliya ee ka soo saartay doorashada Jubbaland xilliga ay dhacayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xilliga rasmiga ay dhacayso maamulka Jubbaland doorashadiisa iyadoo u asteysay goob cayiman inay ka qabsoomayso balse wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland ayaa si kulul jawaab uga bixisay arrinkaasi wasaaradda ayaa sheegtay in xilligan aysan aqoonsaneen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya warka ay soo saartay waxayna sheegtay in Jubbaland ay u madax bannaan tahay doorashadeeda xilliga u asteysan ay qabsoomi doonto dowladda Soomaaliya ayaa hay'adaha degan xalane ka dalbatay inay bedelaan magac ay u adeegsadaan garoonka diyaaradaha aadan cadde wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda Soomaaliya ayaa qoraal u dirtay hay'adaha caalamiga ah ee degan xalane iyo kuwa duulimaadyada iyagoo sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah u bedelaan magac ay u adeegsadaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde hay'adaha caalamka ayaa garoonka waxay u adeegsadaan magaca garoonka caalamiga ah ee Muqdisho balse wasiirka ayaa sheegay in garoonka magaca lagu maamuusayo madaxweynihii hore ee aadan cadde loona magac diray garoonka diyaaradaha aadan cadde loona baahan yahay in hay'adaha ajnabiga ay magacaasi adeegsadaan dowladda Nigeria ayaa Soomaaliya uga digtay go'aankii xiriirka ay uga jartay dalka Gani war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Nigeria ayaa lagu sheegay in go'aanka dowladda Soomaaliya ee xiriirka ugu jartay dalka Guinea uu yahay mid qaldan loona baahan yahay in si degdeg ah uga laabato dowladda Soomaaliya go'aankaasi dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan xiriir ku jartay dowladda wadanka Gani kadib markii ku eedeysay maamulka Somaliland ay u maamuseen hab dowlad jirto kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa 3 ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab waxay ku fulisay dil toogasho raggan ayaa loo haystay in horey qaraxyo ay uga geysteen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya raggan ayaa horey maxkamaddu waxay ugu xukuntay dil toogasho iyadoo racfaan ay ka qaateen maxkamadda racfaanka ayaa mar kale toogasho ku xukuntay 3 ruux oo loo haysto inay fal qaraxyo ka fuliyeen hotel ku yaala magaalada Baydhabo ugu dambeyn maanta ayaa toogashada lagu fuliyay 3 eedeysane warkii aad ka daawanayseen raadraaca wararka daawadayaal waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay si wararkeena aad ula socoto subscribe saar channelkan